بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أهبون أخياري هالكني وشاتي تي في إمكانه كسر دوادا ورركي عالم كاي الصومالي دا مقال ورد كنا وحنا كو إيجي دونا مدحوينها dalkaasi Russia Vladimir Putin oo sheegay inuu doonayo inuu soo gabagabeeyo dagaalka ka socda Ukraine sida ugu dhaqsiyaha badan xilli uu ka hadlayay shir madaxeedka iskaashiga ee ka dhacaya Uzbekistan halkaas ay ku kulmeen ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ay ku kulmeen ayuu sheegay hadalkaas iyo hadallo kale oo nimika idin qarinayo dhanka kale Vladimir Putin wuxuu sheegay in xukuumadda Kiev ay diidan tahay wadaxaajoodka ayna doonayso inay ka guul gaarto ujeedada goobta dagaalka ayuu warkiisa ku soo gabagabeeyay Vladimir Putin qodobkaas imika idin sheego intii hore ka faahfaahsan ayaan rabaa inaan halkan idin ku soo jeediyo daawadayaal inta ka horeysa intaan idin soo gudbina channelka subscribe saaro oo gambaleelka taabta imika ku soo dhawaada qodobkaas idin sheego intii hore ka sii faahfaahsan madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ka qayb galay shirka dhinaca socda shirka ururka iskaashiga ee Shanghai ee loo soo gaabiyo SCO ee ka dhacay magaalada Samarkandi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay Hindiya Narendra Modi inuu fahansan yahay walaaca New Delhi ee ku saabsan iska hor imaadka Ukraine ee uu doonayo in sida dhaqsiyaha badan loo soo afjaro sida uu sheegay akhriska labada geesoodka ah ee ay daabacday criminalka ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa u sheegay Vladimir Putin jimcihii isaga oo ka hadlayay shirka madaxeedka amniga ee gobolka Uzbekistan waan ogahay in xilligan uusan ahayn xilli dagaal waan ogahay buu yiri waxaanan kaga wada hadlay dhanka telefoonka arrinkaas waxaana u sheegay in dimuqraadiyadda iyo diblomaasiyaddu wada hadalku ay dunidu ku dhisan tahay ayuu sheegay laakiin Vladimir Putin ayaa dhankiisa sheegay in xukuumadda Kiev ay diidan tahay wadaxaajoodka ayna ku tala jirto inay gaadho ujeedada goobta dagaalka waan ogahay ayuu yiri mowqifka ku aadan iska hor imaadka Ukraine iyo walwalka sida joogtada ah ay u muujinayso xukuumadda Hindiya ayuu sheegay Modi mar uu ka hadlayay shir madaxeedka ururka iskaashiga ee ka dhacaya Shanghai ee loo soo gaabiyay SCO ee magaalada Samarkanda ee Uzbekistan wixii kale ka soo cusmaanada muuqaaladina kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal channelka subscribe dhaha nabaday